السلام عليكم أصحابتا كسو دبادا موقالكayna maanta waxaan kaga hadli doonaa kooxda Coxd oo ah koox ka soo jeeda magaalada xeebeedka ee BIIRE ee dhaca gobolka weyn ee Accra ee wadanka Ghana kuwaas oo qoob ku ciyaar ku Sogootiso meedka kooxdani waxaa la yiraahdaa Nani Otafridge am waiting service balse waxay ku magac dheer yihiin Coxd shaqadoodu waa qaadada sanduuqyada meedka lagu rido si ay u geeyaan qabuuraha kooxdani waxaa hoggaan u ah Benjamin Adoy oo ah aasaasaha kooxdan markii hore shaqadoodu waxay ahayd kaliya qaadada sanduuqyada meedka balse mar dambe ayaa ku soo siyaaday fikirka ah in qoobku ciyaar lagu dul sameeyo sanduuqa uu ku jiro meedka waxayna soo shaac-baxday 2017 sanadkan 2020ka kooxdani waxay noqdeen kuwa aad uga caan ah baraha bulshada Facebook Twitterka iyo TikTokka sababtoo ah waxay noqdeen wax loo isticmaalo qofkii shil ama ay dhibaato soo gaarto muuqaaladooda waxaa la raaciyay muusikada heesta astronomy kooxdan Coxd waxay sameeyeen video dhawaan ay kaga mahadcelinayaan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha adeega caafimaadka sida ay ula dagaalamayaan cudurkan coronavirus wadooyinka waaweyn ee wadanka Brazil waxaa lagu dhajay boorar ay ku sawiran yihiin kooxdan waxaana ku qoran stay at home or dance with us Benjamin ayaa u sheegay wargeyska The Washington Post dadku waxay dhahaan waxaan rabnaa inaan guriga iska joogno halkii ay raggaasina aasi lahaayeen dambeyn waxaa baraha bulshada gaar ahaan Facebook Twitterka ku arkaysa shacbiyada ay haystaan kooxdan iyo sida ay u matalaan dadka iyo shaqaalaha waxaana kooxdani dadka ku Sogootisaa dadka dhinta ama meedka ah qoobka ciyaar السلام عليكم مقعي وعد وقصلي فضلا هذا كوحد IMAANSHO سبسكرايب لايك كومنت شير